faransiiska iyo imperialismku ha dhaco ruushkuna ha noolaado waa fariimaha ku qornaa boodhadh waaweyn oo lagu arkayey afaafka safaaradda faransiiska ee caasimadda Nîmes ee waddanka Niger xaddii la soo dhaafay 4 maalmood kadib markii uu dhacay afgambigii uu hogaaminayay Generaal Umar Abdulrahman Tiani ee ka dhanka ahaa madaxweynihii dalkaasi xukunka laga tuuray ee Mohamed Bazoum. Dhambaalkani wuxuu ka turjumayay marxaladaha adag ee soo wajahay Faransiiska isagoo u muuqda inuu ka sii huleelay qaaradda Afrika oo maalinta ka dambaysa uu dal muhiim ah luminaya dalka Faransiisku. Inkastoo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu socdaalkii shaqo ee 18aad uu ku yimi Afrika muddo 6 sano gudaheeda, ujeedadiisuna ay ahayd sidii uu soo afjari lahaa daldaloolada ka dhashay nacaybka Faransiiska loo hayo iyo in dalkiisu dib u soo ceshado saameyntii uu ku dhex lahaa qaaradda Afrika. Waxay u muuqataa in Faransiisku ay dul hoganayaan madmadow badan oo mudan inuu mustaqbalka kala cadeeyo oo ay ugu horeyso siyaasaddiisa ku aadan gobolkaas kadib markii ay meesha ka baxday saaxiibkii uu ku lahaa ee madaxweyne Bazoum waa madaxweynihii dalka Niger ee xilka laga tuuray. dhanka kalena dowladda Faransiiska ayaa u muuqata inay ku fashilantay dhanka sirdoonka ay ku lahayd qaaradda Afrika sababtoo ah waxaa kor u kacaya ama soo ifbaxaya kooxo mucaarad ah oo aysan dowladda Faransiiska waxba ka wageen oo ku sugan qaaradda Afrika halkaas ay ku sugan yihiin sidoo kalena ciidamada Faransiiska iyo kuwa sirdoonku. waa dharbaaxo kale oo kaga dhacday halkaasi. khubarada dhanka siyaasaddan waxay tilmaamayaan in guuldaradaasi ay sababtay 4 guuldarro oo Faransiisku wajahay kuwaas oo 3 hore uu kala soo kulmay dalka Burkina Faso, Mali iyo Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika. dalalkaas ayaa gacmo furan ku soo dhaweeyay dowladda Ruushka iyo kooxda Wagner waxaana hadda dalalkan ku soo biiray dalka Niger. waxaana la aaminsan yahay Faransiisku uu haatan lumiyay saameyntii ku lahaa dalalkii uu hore u gumaysan jiray ee galbeedka Afrika u badnaa, isla markaana waxaa meesha ka baxay xiriirkii uu kala dhaxeeyay wadamadaas ugu saameynta badnaa gobolka, gaar ahaan iyadoo ay ku sugan yihiin hadda dalalkaasi quwado kale oo shisheeye oo la mid ah Faransiiska sida Ruushka iyo Shiinaha iyo Turkiga oo dalalkaasi hadda ku sugan. afgambiga Niger ayaa muujinaya hoos u dhaca saameynta Faransiiska iyo Mareykanka, gaar ahaan tan iyo markii madaxweynaha Niger Mohamed Bazoum oo lagu tiriyay inuu yahay gacanta koowaad ee Faransiiska ee dalalka Afrika ee galbeedka halkaasi looga tuuray si xooga. dalka Niger ayaa si weyn looga hadalhayaa in askar ka tirsan ilaalada madaxtooyada madaxweynaha dalkaasi Mohamed Bazoum oo ku sugnaa afaafka hore ee ay saacado kooban xayireen dhaqdhaqaaqa madaxweynaha, waxaana intaa kadib ciidanka ilaaladu ku dhawaaqeen xilka tuurista madaxweynaha iyo in la xidho xuduudaha dalka, waxayna sidoo kale magaalada ku soo rogeen bandow. dhacdadan ma aha tii ugu horreysay ee waa iskudaygii saddexaad ee dalka ka dhaca 2 sano ee la soo dhaafay oo 2 iskuday oo hore way fashilmeen waxayna dhaceen sanadkii 2021 maalmo ka hor intii uusan xukunka la wareegin Bazoum iyo weliba bishii Maajo sanadkan oo madaxweynuhu ku tagay booqasho dibadda taasoo wadarta guud ee galbeedka iyo bartamaha Afrika ilaa 2020 ka dhigaysa midkii 7aad. afayeenka guddida la magac baxday badbaado qaran ee dalkaasi Niger, Generaal Amadou Abdulrahman ayaa sheegay in xayiraad lagu soo rogo madaxweyne Bazoum ay dan u tahay waddanka in looga fogaanayo inuu dagaal ka dhaco kadib markii ay sii xumaatay xaaladda amniga iyo maamulka ee dalka, taasoo u dheer tahay in mid dhaqaale iyo mid bulshada la xiray. haddii aynu si hoose u fiirino waxaa ka socda dalka Niger oo isagu dhaca galbeedka Afrika kaasoo dhanka waqooyi xuduud kala wadaaga Algeria iyo Liibiya, xagga barina ka xiga Chad, dhanka koonfureedna ay kaga aadan yihiin dalalka Niger iyo Benin, dhanka galbeedna uu ku hayo Burkina Faso iyo Mali. waana dal aan bad lahayn oo u dhaxeeya 7 wadan. bedka guud ee dalka Niger waxaa lagu qiyaasaa 1.3 milyan oo kiiloomitir oo laba jibaaran, taasoo ka dhigaysa wadanka ugu weyn ee gobolka galbeedka Afrika marka loo eego bedka. waxayna qiyaastii 80% dadkeedu ay degaan oo ku badan yihiin dhinaca koonfureed iyo galbeedka dalkaas. caasimadiisuna waa Niamey oo ah magaalada ugu weyn ee Niger. dalka Niger waxaa ku nool ilaa 24 milyan oo qof kuwaas oo intooda badan muslimiin ah. Niger waxaa lagu tiriyaa dalalka leh kheyraad badan oo dabiici ah oo ay ku jiraan uraniumka, diamondka, dahabka iyo weliba dhuxusha. balse dalka Niger ayaa ka mid ah wadamada ugu faqiirsan caalamka iyadoo sanadkii 2015 uu dunida ka galay kaalinta 188aad ee ugu dambaysa qiimeynta qaramada midoobay, halka warbixino rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Niger ay muujinayaan in ku dhawaad 43% dadkeedu ay ku nool yihiin faqriga aadka u daran. dhinaca kale dalka Niger ayaa ka mid ah wadamada ay ka dhaceen afgambiyadii ugu caansanaa ee ka dhaca Niger tan iyo markii ay xornimada ka qaateen Faransiiska sanadii 1960 waxaana taariikhda u diiwaan gashan in 4 afgambi uu ka dhacay dalkaasi.
waxaana u sii dheer isku dayo badan oo afgambi oo fashilmay kuwaas oo ay ka mid ka ahaayeen kuwa dhacay dhowr maalmood ka hor calaamasaarkii madaxweyne Bazoum laftiisa. waxaa kaloo moodaa in shacabka Niger ay naceen heeryadii gumaysiga ee Faransiiska, waxayna arrintani sii xoogaysatay tani markii madaxweyne Bazoum uu ka shaqeeyay xoojinta xiriirka Niger iyo Faransiiska, maadaama lagu tiriyo inuu yahay gacanta midig iyo qofka ugu horeeya ee dowladda Faransiisku ay kala xaajooto arrimaha masiiriga ah ee galbeedka Afrika. madaxweyne Bazoum waxa uu dhinaca kale xiriir qoto dheer la leeyahay hogaamiyaha ciidamada dacma sariic ee Suudaan ee uu hogaamiye Maxamed Xamdaan Daqlo Xameeti, wuxuuna lacag tiro badan oo uu Xameeti ka helay uga faa'iidaystay intii uu ku jiray ololihii doorashada, maadaama sida la sheego Bazoum iyo Xameeti xiriir qaraabo oo hoose uu ka dhaxeeyo ayna yihiin laba nin oo ilmaadeera. waana tan keentay inuu ku casuumo xafladii calaamasaarka isagoon casuumin oo weliba mudnaa in loo yeero madaxweynaha dalkaasi Suudaan Cabdulfataax al-Burhaan. sida haatan muuqata Faransiiska iyo Mareykanka ayaa walwal ka qaba in dowladda Ruushku ay ka faa'iidaysato tallaabadan uu ku doonayo inuu ku sii kordhiyo saamaynta uu ku leeyahay qaaradda Afrika, iyadoo ay taasi u dheer tahay cabsida kale ee laga qabo qulqulka dadka tahriibka ah ee sharci darrada ah ee ku soo aadi doona dalalka reer galbeedka haddii uu dhaco afgembigan. si ay taa uga hortagaanna dowladda Faransiiska ayaa cambaaraysay iskuday kasta oo lagu doonayo in xoog lagula wareego talada dalkaasi Niger iyo weliba in meesha laga saaro saaxiibkeedii ugu weynaa ee gobolka. waxaana Faransiisku ka cabsi qabaa in dowladda Niger ay noqoto waddanka saddexaad ee Ruushku kaga adkaado galbeedka Afrika kadib markii ay hore gacanta ugu dhigeen Ruushku dalalka Mali, Burkina Faso. waxaana dowladda Faransiisku xilligaasi qaaday tallaabo ah inay ciidamadeeda kala baxdo dalka Mali. dhinaca kalena dalka Niger ayaa kaalinta afraad kaga jira dalalka ugu soo saarista badan macdanta uraniumta ee caalamka. Niger waxay Faransiiska u noqotay dalka ugu badan ee u soo gudbiya ama uu ka soo rarto macdanta uraniumka, iyadoo Niger ay daboosho 35% baahida Faransiiska ee macdantan, kuwaas oo ay uga faa'iidaystaan warshadaha nukliyeerka oo waxay 70% ka caawisaa tamarta korontada. waxaa kale oo jira saldhigyo ciidan oo Faransiisku ku leeyahay Niger, waxaana dowladda Faransiiska dalka Niger ka jooga ilaa 1500 oo askari oo Faransiiska marka lagu daro baa la yiri inay xarun u tahay ciidamada NATO ee galbeedka Afrika sida ay qorayaan warbixinadu. haddaba goobtan ay ku taalo Niger ayaa juqraafi ahaan ka caawiya ciidamada Faransiiska inay la socdaan xuduudaha Liibiya iyo la dagaalanka waxa loogu yeero tahriibta sharci darrada ah. khabiirka dhanka istiraatiijiyadeed dalka Faransiiska Dominique Courayol ayaa war-saxaafadeed soo saaray ku sheegay in saamaynta haatan Faransiiska ee dalalka galbeedka Afrika ay marayso meeshii ugu xumeed abid. siiba baa la yiri afgambigii dhowaan ka dhacay Niger oo u qoyskooyay dowladda Faransiiska, sababtoo ah waxaa laga yaabaa in Ruushku ka faa'iidaysto xiisadan haatan socota isla markaana uu fuliyo ajandihiisi uu doonayo inuu gacan saar la yeesho bulshada halkaasi ku nool ee aan ku qanacsanayn joogitaanka reer galbeedka ee dalkooda. dhinaca kale dowladda Mareykanka ayaa isla markiiba cambaaraysay afgambigii ka dhacay dalka Niger kuna baaqday in la sii daayo madaxweyne Bazoum, waxaana soo baxaya walwal kale oo xooggan oo ku saabsan haddii afgambigani si buuxda u guulaysto in dalka Niger ay noqoto dalkii 11aad ee ka tirsan qaaradda Afrika oo gacanta u soo gala siyaasadda Ruushka, halkaasoo Ruushku u diri doono ciidamo ka tirsan kooxda Wagner kadib markii sanadkii hore sidaas si la mid ah dalka Burkina Faso uu la wareegay Ruushku isla markaana u diray ciidamo fara badan oo ka tirsan kooxda uu maamulo ee Wagner. barnaamijkeena xulashada dunida oo aad kala socoteen Horfadhi TV.